Macalin Xamaam oo ka mid ah macallimiinta sida weyn loogu yaqaan dalkeena Soomaaliya, kana mid ahaa macallimiintii sida weyn uga soo shaac baxay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu mar kale todobaadyadan ka soo muuqday tartanka horyaalka gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale tartanka koobka Janno Daa'uud oo markaasi laga ciyaaro dalkeena Soomaaliya. Haddii aan ku horumarno dhanka tartanka Janno Daa'uud ee dalkeena Soomaaliya, waxa uu u leeliyaa kooxda dhawaangalka Saxafi ee magaca weyn ku leh horyaalka dalkeena Soomaaliya ayuu macallin u noqday, isagoona doonaya in sanadkan uu ku soo baxo macallin si weyn uga soo dhex muuqan doono tartanka Janno Daa'uud iyo sidoo kale tartanka kubadda cagta horyaalka ee dalkeena Soomaaliya iyo kan gabdhaha. Laakiin tartanka Janno Daa'uud durbadiiba waxa uu markaasi kala kulmay waji cusub, maadaama halkan ay tahay naadiyada ugu waaweyn ee dalkeena Soomaaliya ee ku hardamaan marka la fiiriyo tartanka koobka Janno Daa'uud. Kooxda Saxafi iyo Jenyo oo toddobaadkan ciyaaray ayaa guuldaradii ugu xumeed markaasi kala kulmay Macalin Xamaam oo markaasi hogaaminaya wiilasha kooxda kubadda cagta Saxafi. Ciyaartaas inta ay socotay sidoo kale waxa uu markaasi qaatay casaan isaga iyo sidoo kale macalinka kale ee kooxda Jenyo, Macalin Aaman, waxayna ciyaartaasi noqotay mid si lama filaan ah markaasi u dhacday, iyagoona labadii macallin ay markaasi qaateen calaamadda roosaha ama gaduudka, sidaasi garoonka uga baxay. Macallinkan ayaa markaasi xilli ciyaareedkan la filayay in kooxda Saxafi kula guuleysan karo koobka baaxadda weyn ee koobka Janno Daa'uud. Cabdulaahi Kaahiye ayaa markaasi wejigabax kala kulmay toddobaadkan. Sidoo kale macallinkan ayaa waxaa isna loo magacaabay isla kooxda gabdhaha markaasi Xijaab Dreams oo loogu doortay in uu hogaamiyo horyaalka gabdhaha. Xilli ciyaareedkan kulankiisii ugu horeeyay ayuu waxa uu ka hortagay kooxda Nasiib iyo Xijaab Dreams ay markaasi wada ciyaareen. Macalin Xamaam ayaa durbadii shax cusub ku soo kordhiyay kooxda, waxaana isla markiiba shaxdii uu la yimid ay noqotay mid markaasi uu ku hungoobay. Waxaa laga dhaliyay gool qura qaybta hore ee ciyaarta. Macalin Xamaam ayaa markaasi xaaladda ku adkaatay, waxa uu sameeyay isku shaandhayn kooxdiisa inta lagu guda jiray, waxa uu soo celiyay goolka barbaraha oo markaasi ka dhigay 1-1 ciyaarta. Sidoo kale mar kale ayaa hoggaanka looga qabtay isla Macalin Xamaam, waxaana fursadaasi helay kooxda kubadda cagta markaasi Nasiib xilli ciyaareedkan, isagoo aan markaasi wax isbeddel aan sameyn. Mar kale ayuu fursad soo laabasho sameeyay, hoggaanka ayuu u qabtay macallinkan. Waxaa la is oran karay marka uu hoggaanka qabtay inuu sidaasi ku dhammeyn karo ciyaarta, ay noqon doonto 2-3 oo markaasi hoggaanka ku hayeen. Laakiin jawaab degdeg ah waxa ay ka bixiyeen isla gabdhaha kooxda kubadda cagta Nasiib, taasoo durbadiiba ay markaasi ku dhufteen 2 gool oo sidaasi ay ku soo idlaatay 3-2. Macalin Xamaam oo labadii guuldaro ugu waaweyneed kala kulmay tartanka Janno Daa'uud iyo sidoo kale horyaalka gabdhaha ee dalkeena Soomaaliya, waxaana la filayaa in tartamada kale uu isbeddel sameeyo. Xamaam ayaa inta badan waxa uu markaasi ka soo muuqday tartanka degmooyinka kubadda cagta oo uu wacdaro ka dhigay. Waxa uu soo leeliyay degmooyin kala duwan, isbeddelo ayuu markaasi ku sameeyay xilliyadii uu ku sugnaa. Waxa uu si weyn ugu soo dhalaalay degmada Kaaraan iyo sidoo kale degmada Howlwadaag oo inta badan ka mid ahayn degmooyinka sanadihii ugu dambeeyay markaasi u qaadeen 2 koob oo markaasi degmada Kaaraan iyo degmada Howlwadaag. Waxaa markaasi bilowday waa cusub iyo weji cusub oo macallinkan waxaa la is dhihi karay haddii uu markaasi waayaha kubadda cagta sii wado ama uu ka soo muuqdo
tartamada kale ay noqon doonto macalinka guusha. Laakiin taasi maysan dhicin xilligan ee sanadkan cusub ee 2026 waxa uu ku daahfurtay guuldarrooyin xanuun badan oo taariikh weyn ayay markaasi kasoo gashay kubadda cagta. Sanadkan Hammam waa mid markaasi guuldarro ee kala kulmay. Waxaa la filayaa in kulamada kale ee soo socda ee horyaalka gabdhaha in isbeddel uu ku sameyn karo. Waxyaabaha sanadkan ee laga filan karo: Macallin Hammam ayaa la filayaa in isbeddello waaweyn uu ka sameeyo tartamada idil ee dalka, waxaana soo socda tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo sidoo kale horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya ee wiilasha oo la filayo in kooxda Saxafi uu sii leelin doono ama waxay u muuqan doontaa in uu beddel wanaagsan ka raadsaday isla sanadkan inta lagu guda jiro. Sidoo kale horyaalka ee gabdhaha ayaa meel xamaasad ah maraya, isagoo wejiga koowaad hadda gabagaba ah, waxaana la filayaa in wejiga labaad uu markaasi la soo bixi doono weji cusub oo markaasi la is dhihi karo guul ayuu ku soo dhammaan doonaa.